warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland ayaa qoraal ay soo saartay maanta waxa ay ku sheegtay in telefishinada SBS iyo Som News TV laga joojiyay in ay ka shaqeeyaan Somaliland kadib markii ay ka baxeen milgihii anshaxii saxaafadda. Warkaasi oo ay baahisay wakaaladda wararka Somaliland ee Solna waxa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland ay ku sheegtay inay caddaan tahay in labada telefishin ee kala ah SBS TV iyo Som News TV ay ku kaceen falal olole siyaasadeed iyo dagaal boonboonin cada oo ay ku hayaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland waxay sheegtay in telefishinka SBS TV uu caado ka dhigtay inuu sameeyo isla markaasina baahiyo warar iyo barnaamijyo been abuura oo qaawan iyo kicin dadweyne oo fidna abuura sida ku cad muuqaalada iyo heesaha joogtada ah ee gubaabada ah ee lagu hanjabayo Somaliland isla markaasina loogu sameeyo propagandada iyo boonbooninta taageerada maamulka Puntland. sidoo kale telefishinka Som News TV waxa uu isna si joogto ah u baahiyaa ayaa qoraalkaasi wasaaradda warfaafinta ka soo baxay lagu yiri baaqiyo kicina iyo gubaabo qabyaaladaysan kuwaasi oo fidno ka dhex abuuraya bulshada Somaliland isagoo sameeya barnaamijyo qabiilaysan oo gubaabo dagaala oo ka baxay Som News TV waqtiyo kala duwan laga soo bilaabo taariikhdu markay ahayd 22 bishan shanaad ee 2018. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland waxay intaasi ku dartay in telefishinadaasi ay lumiyeen dhexdhexaadnimadii iyo dhowristii xeerarka waaqicnimada saxaafadda sugnaanshiyaha xogta iyo anshaxa mihnada saxaafadda ee laga filayay inay dhowraan isla markaasina ay jabiyeen telefishinadaasi shuruudihii laga doonayay hay'ad kasta oo warbaahineed oo ka shaqeynaysa Somaliland inay dhowrto. dhinaca kalena ay ku xadgudbeen qodobo ka mid ah xeerka saxaafadda xeer number 27/2004 ee Somaliland qodobkiisa 10aad oo qeexaya u hoggaansanaanta xeerka saxaafadda ee tilmaamaya raadinta xaqiiqada iyo sugnaanshiyaha xogta. sababahaasi awgoodna ay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland ay soo saartay amar lagaga mamnuucayo telefishinadaasi SBS iyo Som News gudaha Somaliland inay ka howlgalaan ama wax shaqo ay ka qabtaan dalkan Somaliland. waxaana lagu amray qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta taliyaha ciidanka booliska Somaliland gudoomiyaasha gobolada iyo gudoomiyaasha magaalooyinka iyo degmooyinka dalka in la xidho dhammaanba laamaha iyo xafiisyada SBS iyo Som News TV ee dhammaan gobolada Somaliland. waxaana la mamnuucay in wax shaqaale ah ama suxufiyiin ay warar iyo warbixin uga diraan Somaliland telefishinadaasi SBS iyo Som News. qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland waxa lagu xusay in cid kasta oo warbixin gudaha Somaliland uga dirta telefishinadaasi la mamnuucay in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.